والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب سبحانه وتعالى أيام هذا السكرة waxaan rajaynayaa imtixaankii wasaaradda oo noo bilaawday 24 bishii shanaad 2025 ayaa maanta waxaan rajaynayaa inuu gabagabo inoo yahay marka waxaan ka rajaynayaa ardayda dhammaantoodna waxaan u rajaynayaa guul iyo barwaaqo iyo baraaro insha Allah hadduu rabbi idmo dhammaantood waxaan leeyahay insha Allah maadada maanta inuu kugu dambaysa oo inoo gabagabada insha Allah ayagu labada maadan inaan insha Allah miro ka keeni doontaan وانا رجينا ان شاء الله اقول بدنا دمانتين ان شاء الله waxaan rajaynayaa inaa gobolka insha Allah qaadi doontaan imtixaamaadka oo ilaahay idinki insha Allah hadoo rabiina hogaamin doontaan inta kaga gudbo arday maxaa la yiraahdaa arday waxa la yiraahdaa arday ku dheehan akhlaaq iyo dhaqan iyo asluub marka qofka waxa laga rabaa markasta inuu san degdegin imtixaanka haduu rabi raali ka noqdo oo dhibcahana ku xisaabto inta imtixaanka hadaan kaga gudbo waxaan rajaynayaa maanta maadaama tahay maalintii imtixaanka inoo ugu dambeysay arday kasta waxa rabaa inuu iska ilaaliyo oo darajadiisa ilaashado oo waxa weey dhibco laga goosan oo waxa weey sabrofaysaradii iyo macallimiintii waardiyaha ahaa iyo kulli waa joogaan iyo ciidankiiba aad bay ugu mahadsan yihiin ardayga meelaha lagu arko asagoo maraya ama wax fawda lagu qabto si soo gudbiyay mas'uuliyiintu imtixaankiisa baa dib loo fiirinayaa magaciisana waa la qoranayaa hadduu rabi raali ka noqdo marka qof kasta akhlaaqdiisa ha ilaaliyo si asluuba iyo sharaftii iyo ciziga iyo karaamadii aad imtixaanka ugu jideen iyo sidii la idin soo dhaweeyay wasaaraddu idin kugu soo dhaweysay imtixaankii marka insha Allah Allah idin barakeeyo insha Allah guul fiican iyo barwaaqana way rajaynayaa waxaan halkaan uga mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada Puntland iyo gudoonka gobolka Dugaal oo iyaduna waxa way hawshaas waxa way gardaadinayay oo waday iyo sabrofayserada iyo macallimiinta cusub oo imtixaanka inoo ilaalinayay oo inuu ku cusub yihiin wajiyadooda waxaan rumaynayaa 4 bari baan wada joognaa qaabiliyada iyo wanaaga iyo naxariista ay ardayda ku daadihinayeen baan uga mahad celinayaa waxaan leeyahay Ilaahay baar subhanahu wa ta'ala koobi kare mas'uuliyadaas insha Allah Ilaahay idinka abaan mariyo jannati firdawsna insha Allah Ilaahay miisaankiina ka dhigo Allah idin barakeeyo ardadana waxaan u rajaynayaa insha Allah guul iyo barwaaqo iyo meel saro insha Allah lagu farxo ka dawlad ahaan ka Puntland ahaan يا كوغولا هام إن شاء الله حضور بإذنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته